Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa maanta inta la hadlay dagaalku ay dowladda federaalka Soomaaliya kula jirto argagixisada Al-Shabaab. Tan iyo markii 2006 Al-Shabaab ayaa dilay in ka badan 1 milyan oo Soomaali ah. Dagaalkan ay muhiim u ah nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya. CBB-na waxaan rabaa in aan sidan u sheego inta in la xeeq ayaan dig Soomaaliyeed lagu daaytay ka hor inta uusan madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud xukunka la wareegin sanadkii hore. Dhammaan taageerayaasha madaxweynihii hore Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed waxba kama aysan qaban ee Al-Shabaab. Taas waa runta. Dowladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa ay qabsato magaalooyinka laga qabsatay oo aysan mar dambe gacanta u gelin Al-Shabaab. Taasi waa ahayd gabadhi. Waa mahadsantiin.